degmada Garowe ayaa markii ugu horeysay tan iyo asaaskii Puntland maamulaysa nidaamka waxbarasho ee 10 iskool oo isugu jira dugsiyada hoose iyo dhexe. Mayor Geedi ayaana farxad ku tilmaamay hirgalka barnaamijkan maamul daadajinta oo ay qayb ka yihiin inay degmadu la wareegto maamulida adeegyada waxbarasho iyo caafimaad ee degmada. run ahaantii maanta waa maalin taariikhi ah. waa maalintii ugu horeysay ee abid caasimaddu ay daafurtay iskuulaadkii ay la soo wareegtay waqtigii lagu talagalay dawladdu ay u asteysay maamul daadajintii. runtii maanta waxaa nasiib u helay niyu waa bari in laga daafuro iskuulaadkii ay degmadu gacanta ku haysay. waxaana idinka leedinku soo leexiyay maadaama xaafadahaana u weyn tihiin dad ahaana u badan tihiin sidaa darteed maanta halkaan laga daafuro. duqa degmada Garowe ayaa daayartan u fariisanaysa imtixaankoodii sanadlaha ahaa kula dardaarmay inay dadaal muujiyaan si ay kaalmaha hore imtixaanka ugu soo galaan degmadan oo ay hirgasho inay si rasmi ah ula wareegto maamulida dhammaan dugsiyada waxbarashada ee ku yaala degmada. inaad ku guulaysataan imtixaanka dhammaantiin waxaan rajaynaynaa inaad dhammaantiin meel aad joogtaanba isku xirnaataan ka tashataan ayatiinkiina iyo waxbarashadiina maadaama aad dad yar aad ogaataan meesha waxa aad u timaadeen inta waxbarasho ixtiraam bay idinku leeyihiin macallimiintiina iyo maamulkiinu sida waalidkiina kala ah. waxa la rabaa maanta inaad noqotaan iskuulaadka ugu horeeya imtixaamaadka 2023 2024 si loo dardargeliyo iskuulaadka ay caasimaddu gacanta ku hayso. kadib waxa gacanteena soo gali doona iskuulaadka kale. Yusuf Maxamed Maxamuud, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Garowe.